kadib maalintii shalayto mar ay warbaahinta la hadlayeen guddiga uu diyaargalowga qabanqaabada kaabka kubadda cagta ee toddobada gobol ee galbeedka Somaliland isla waqtigaasina uu goobjoog ahayn isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dalxiiska ee gobolka Awdal ayaa maanta haddaba mar uu la hadlayay warbaahinta isuduwaha wasaaraddaasi Samaroon Cabdilaahi Cilmi waxa uu ka warbixiyay arrimo dhowr ah sidii kale gobolku kooxdiisii u tartami lahayd ee magaca gobolka uu way diyaarsan tahay waxay sugayaan saacadii la bilaabayo tartanka wax ka qabiyo ma jiraan runtii oo nahayn hadii runta laga taabto dhanka dhaqaalaha runtii gobolku sida ogtihiin waa ka qabanaya qayb kamid ah koobkii tartankii ee gobolada Soomaaliya guddigii qabanqaabada oo runtii mar hore la magacaabay qabiyaasi ahaa waxa weeye hawlo ay qabteen marka la tilmaami karo way iska kooban tahay runta marka laga wax badan baa noo qabiya ah u baahan in la dardar geliyo waayo guddigu si toos ah oo ay iyagoo dhammaystiran u kulmeen ma jirin markaani waxa fiican kulley gobolkeena ku qabanayna boorka iska jiro isagoo oo geesta kalena beeniyay hadal ka soo yeedhay maalintii shalayto xogayaha guud ee gobolkani Awdal Asad Cabdi Jaamac oo ku aadanaa in ay guddiga qabanqaabadu dhowr jeer oo hore ay wada kulmeen ayaa waxa uu yiri wallahi horta khilaafku naguma yara gobolka waxaan moodaayeen khilaafku hadii waxba la sameeyay la yiraahdo waa 100 qof ay soo wada dhinac galay guddida waa la sameeyay laakiin runtii hawl uu ku faali karo maanta qabtay ma jiro ana xubin kamid ah nahay markii la kulmeenay ma jiro taaba oo ku filan qabadeen marka ay laga hadlaaqay ay jiro isla isaguna waxa dhankiisa ka hadlay xildhibaan Rooble Muuse Xoosh oo kamid ah xildhibaanada aqalka golaha deegaanka Boorama kana soo baxay xisbiga xaakimka talada dalka hayay kulmiye kuna baaqay in guddiga u diyaargalowga qabanqaabada kaabka kubadda cagta ee toddobada gobol ee galbeedka Somaliland ay martiin galin doono gobolkani Awdal in ay ku fashilmeen gabi ahaanba hawshii loo igmaday tilmaamayna in ay gabi ahaanba iska casilaan hawshaas loo igmaday isagoo oo xildhibaanku arrimahaasi ka hadlayana hadaladiisi waxa kamid ahaa waxaan laakiin daliil u soo jeedinayaa halkeedii taalo waliba guddida heer gobol ee loo magacaabay inay isku dubaridaan xulka gobolka Awdal iyo qaybta qabanqaabada maadaama gobolka Awdal degmada Boorama magaalada Boorama sanadkan lagu qabanayo waxay ahayd iyadoo laba jeer dib loo dhigay qabanqaabada kuubka in la qabto in ay wali liigayso meel laga haystaan waan garanayn guddida qabanqaabada heer gobol ee loo xil saaray hawlahaas inay isku dubaridaan waxaan leeyahay anu sheegayaa guddidu haddii ayna xilkeeda ka bixi karaynin oo inay isku dubaridka ciyaaraha iyo dhalinyarta xulka ee sanadkan nasiibka u heshay in ay ka qayb galaan oo ay u tartamaan gobolka Awdal in la dhiiri geliyo haddii ay guddidu ku guul daraysatay oo garab joogsadaan waxaan leenahay xilkaas la idin igmaday waad ku fashilateen totally cid kale loo igmaday iska casilan ku oran la iska taga meesha sababtoo bil iyo dheeraad bay maraysaa oo isdaba wareegayaan meel alla meel wax ka soo qabteen lama helo isku soo wada duub oo muddooyinkii u dambeysay dib u dhici xoogana ee ku yimid gabi ahaanba kaabka kubadda cagta ee gobolada Somaliland ayaa waxa uu noqday mid maran xoogan ka dhaliya gabi ahaanba gobolka Awdal iyo magaalada madaxda gobolkaas ee Boorama waa Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somaliland Space Channel Boorama